dowladda federaalka tani waxay ku noqon doontaa fadeexad aad u weyn haddii aanay jawaab degdeg ah ka bixin. maxaa ka jira in taliya Shaah Macbe uu ku baxay gacanta diyaaradaha daroonka oo ay duqeeyeen gaari ula socday. warbixintan ayaynu xogtan ku eegi doonaa ee soo dhawaada. dawladdan nagu cusubta nagu soo bir oo muuqaalka share garay si uu dad badan u gaaro mahadsanid. sidaan la wada soconno ilaa iyo hadda dowladda federaalka Soomaaliya jawaab rasmi ah kama aanay bixin xaaladda uu ku sugan yahay taliya Shaah Macbe. miyuu geeriyooday miyuu nool yahay ilaa hadda xitaa ma jirto oo dowladda lagama hayo inay dirtay khubaro ku saabsan inay arrinta soo baaraan. 3 toddobaad ayay sii maraysaa kadib weerarkii coos weyne oo taliyaha lagu waayay. madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud ahna taliyaha ciidanka qalabka sida wasaaradda difaaca iyo taliska ciidanka xoogga dalka waxaa saaran mas'uuliyad weyn oo haddii aanay jawaab degdeg ah siinin ehlada taliya Shaah Macbe ay noqon doonto fadeexad weyn iyo jab ballaaran ay abuuri doonto. ehlada ilaa hadda waxa ay dowladda ka baadigoobayaan in ay helaan xogta wiilkooda oo isagu ahaa taliyaha guutada 25aad ee Cumar bin Khadaab. hase ahaatee markii uu dhacay weerarka coos weyne war iyo wacaal toona aan laga helin wixii ka dambeeyay. warar kala duwan ayaa soo baxay oo sheegaya taliyaha inuu geeriyooday. wararka qaar waxay sheegayaan inuu nool yahay, laakiin waxaasoo dhan cidda xaqiijin lahayd waxay ahayd dowladda federaalka Soomaaliya. ehlada ilaa hadda waxa laga furi laayahay albaabada iyo xafiisyada dowladda haddii ay ahaan lahayd bila Soomaaliya iyo sidoo kale dhanka wasaaradda difaaca. waxaa loo sheegi laayahay halka wiilkooda uu ku maqan yahay. hooyada dhashay taliya Shaah Macbe oo da' ilaa hadda waxay sugaysaa inay hesho war ku saabsan wiilkeeda in loogu sheego in uu nool yahay ama in uu dhintay. taasna waxay muuqataa in dowladdu ay iska dhagatirayso. inkastoo askariga uu dhaarto in uu daafaco dalka iyo dadkiisa karfantiisa uu madaxa ku xirtay diyaarna uu yahay in uu dhinto, haddana dowladda waxaa mas'uuliyad ka saaran tahay in ehlada askariga ama sargaalka ay mar walba warbixin toos ah siiyaan oo ku saabsan xaaladda dhabta ah, kuna aadan in qofkaas ama askarigaasi la la'yahay ama sargaalka la waayo, dhintay, nool yahay, dhaawac yahay iyo wax kastoo xaaladiisa ah. laakiin intaba lagama hayo dowladda federaalka. Cadow Deeq waa walaalka ka weyn taliya Shaah Macbe. muddo 2 toddobaad waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. waxa uu u sheegay warbaahinta in ilaa iyo hadda aanay wax wara ka hayn walaalkiisa. waxa uu sheegay in hooyadiis ay soo dirtay oo ay doonayso in loo celiyo jawaab. waana hooyada ah waa beer wax dhalay oo raba in wiilkeeda meel ay ku hubsato nolol ama geeri. Cadow waxa uu sheegay in uu la kulmay dadka qaar oo saraakiil ciidan, laakiin aanay si dhaba iyagu xog u siin karin amaba aan war xitaa uga hayn oo isaga ay la mid yihiin. laakiin qaarkood waxay u sheegeen taliya Shaah Macbe in uu ku dhintay duqeyn ay fuliyeen diyaarado daroon, gaari uu socdayna la duqeeyay xilligii uu dhacayay dagaalka weerarka coos weyne ama deegaanka coos weyne. dadka qaar waxa ay u sheegeen in uu nool yahay oo dhulhooda ku jiro, laakiin cidda waxaa soo dhan kala og waa dowladda federaalka oo ilaa hadda baaritaan rasmi ah aanan sameyn, sidoo kalena ehlada taliya Shaah Macbe aanay u xaqiijin halka uu ku sugan yahay xaqiiqda dhabta ah inuu dhintay iyo in uu nool yahay intaba. haddaba ehladu waxay codsanayaan in dowladdu aanay sii niyad jabin saraakiisha iyo askarta kale ee halganka ku jira ee qawaarij ama argagixisada la dagaalamaya ee doonaya dalka inay ka saaraan oo xoreeyaan. si askariga niyad uu helo waa in uu ogsoonaada in dowladdiisu ay ka dambeyso oo xitaa haddii uu ku dhinto dagaalka uu kula jiro argagixisada la kafaarad qaadayo ehelkiisa ama dadkii uu ka tagay haddii ay yihiin caruur, waalid iyo wixii la mid ah. laakiin haddii askariga uu ogaado in xitaa inuu dhintay xitaa aan loo sheegi karin ehelkiisa ama marka la waayo aan ehelka xiriir toos ah aan la sameynaynin wasaaradda difaaca, waxay taasi keeni kartaa in askariga uu niyad jabo. waana sababta keentay ilaa hadda qaar ka mid ah furmihii hore looga soo baxay inaysan ciidanka xoogga dalka aanay gaarin ama aanay dib ugu laaban. tani waxay u baahan tahay baaritaan dhab ah iyo isla xisaabtan buuxa cidda ay qusayso, maadaama cidda maqan ay uu yahay sargaal sare oo gaashaanle ah oo xitaa aan la helin meedkiisa nololna aan lagu hayn, iyadoo horeyna Facebookiisa loogu soo qoray in uu nool yahay, taasoo la sheegay in Facebooka laga jabsaday ama ay jabsadeen qolo dhaqaale raadinaysay. laakiin waxa la sugaaba waa jawaabta kama dambaysta ah ee waliba degdeg ah ee looga fadhiyo dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan hay'adaha ay arrintan qusayso. daawada maxay kula taariikhdaada qaybta hoose commentiga noogu reeb muuqaalka share garay si dad badan u gaar mahadsan.